kulanti wanaagsan khiyaarta nala socota meel kasta oo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka faaqadaada wararka caalamka iyo taxliilka diblomaasiyadda waxa ugu horeeya ninkii Trump waxa uu leeyahay dagaalkan in uu ugu sii ballaarto anigu ma rabo nimanka la yiraahdo Iiraaniyiintana waxay ugu qasbeen kaydadkayga difaaca gantaaluhu inay saameyn ku yeeshaan marka sheekada intaanay noqon col hortii jabay waa inaan dagaalkan xal u helo haddaba arrintan muddo dheer ayaa Trump lagala talinaya oo waxa la lahaa dagaalka Iiraan waa dhigbaxa colaad sii fogaata oo dowladda Mareykanku ay kala kulanto dagaal xoog leh isla markaana ay ku horgufto dowladaha waaweyn ee caalamka sida China iyo Ruushka haddaba su'aashu waxay tahay Trump xiska ayaa u soo laabtay مسحيلات كله أيو دمعسين هاي ونسلي قدونا برامج كايان سجارة وقفة قدي دولا سعودية عربية ساكا مقالة النشران اللي رهضوها كدعي وارر لياب له كوحد حوتي هاي سدرن دور هي يوقرعين قرون كديار ضحى مقالة سكويا لا يضو حياة السعودية أرم كانوا أي ورصو صار تو أي لا هاي كوحد هدي أن حلو هلين حيصد واسيح باليسا haddii aan sidoo kale eego wararka waaweyn saaka gobolka ka imaanaya oo adagna waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu anigu waxaan kala garanahay ninkan in uu sheekada ciyaar ay ka tahay inay dhab ka tahay waxa uu leeyahay caalamka gacmaha u furan shacabka magaalada Gaza dadkaasi waxay doonayaan in ay isaga baxaan meeshan kadeedka ah haddaba albaabada u furo yiri shacabkan inagu waan soo fasaxaynaa oo marinada ayaan u banayn doonaa hadalkan sidee dhab u noqon doonaa iyadoo shacabkan ay wali ku adkaysanayaan ninkii dhoof ku yimid bay geeridu dhibaysaa oo ay leeyihiin inagu doolma nihin oo dadkii dhulkan iska lahaa ayaan nahay maxaa Roma oo Talyaaniga ah ka soconaya ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ma ku dheelaya shacabka wadanka Lebanon دولة جوزيف عون وحيوان الله ياب كله هرتاجن لا يهد محل جاي قرنا كلنتي وناكسن قلب وناكسن قيارتها إن الله سعطاي قلب بلاسي تحليل كوبضن أيان دول استاجد دونا ودمان تدول ميري دونا شكوين كواوين قبل كبرية الدحين هذا بعد ديان سن أبا أوفير إنه حالدا ترامب واحد مودا حس كين وصل لعطي محي كرني كانت هاي إن أويرادو دجال كإن لدوني لبلارية دوني مايو iyadoo labadii maalin ee la soo dhaafay uu degniintiisa aad u rogrogayay mise waa ninba gelin bacayn ah oo jirjiroola ah oo hadba laantii iyo geedkii uu ku dhago la midab noqonaya macnaha si kale u dheh galabtiina ma qofba habeenkiina ma qofba casirkiina ma qofba barqadiina ma qof gala madruufaha iyo waayaha ayaa badbadala ninkan soo dhawaada qaybta hoose ee faallada ayaad ku qori kartaa magacaada iyo meesha aad joogtay iyo waliba aragtida kaaga muuqanaysa Trump aad waxay tiraahdaa tala adiga ayaa ku nool iyadu kuguma noola waxaan ula jeedaa ninkii Trump ahaa markii uu dagaalka Iiraan galayay dowlado fara badan ayaa kaga digaya oo lahaa warka joog meeshan meel fudud maaha meel si sahal looga soo laaban karana uma muuqato hadda markii uu odaga dagaalka ku dhaqaala beelay ku askar iyo cudud waayay kuna cudud iyo dhaqaala burburay intaba waxa muuqanaya hadda inuu leeyahay xiska ay soo laabanaya marka la fiiriyo sida dagaalka iyo fikirkiisa uu u rogrogay iyo sida ay hadda wax u socdaan ninka waxa uu leeyahay dagaalka in la ballaariyo nimankan Israa'iiliyiinta ay ku soo beeraan oo gobolka bariga dhexe isla qeyco dooni maayo sida daraadeed waxaan door bidayaa dagaalkan in la joojiyo maadaama gantaalihii difaaca ee kaydka ahaa ay u muuqanayaan in ay burburayaan wargeyska caanka ah ee New York Times ayaa arrintan si weyn wax uga qoraya maanta iyadoo Trump wixii looga degaya hadda uu dhaxdeeda yimid waxa la leeyahay warbixin uu daabacay wargeyska New York Times ayaa sheegaya in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu diiday qorshe lagu balaarin lahaa weerarada ka dhanka ah Iiraan isagoo ka walaacsan talaabada sida weyn u dhimi karta baaliri kaydka gantaalaha hawada ee istiraatiijiga ah iyo xulufadiisaba sida warbixinta ay xustay dagaalka lala galay Iiraan ayaa cadaadis xoogan saaray nidaamyada difaaca hawada sida Patriot THAAD iyo kan Mareykanka ee loo yaqaan Arrow
iyo kuwa arowga ee Israel ay gacanta ku hayso nidaamyadan ayaa loogu talagalay in ay soo ridaan gantaalaha ridada dheer balse isticmaalka joogtada ayaa si weyn u laysay baa layidhi kaydkii halkaasi u yaalay in la soo saarana waqti iyo muddo ayay qaadanaysaa warbixintu waxay sheegtay in saameynta soo saarista gantaaladan casriga ay tahay mid aad qaali u ah halka wax soo saarkoodana uusan la jaan qaadi karin xawaaraha ay ku soconayaan qataraha military iyo dagaalada sii ballaaranaya sida uu qoray wargeyska caanka ee The New York Times Trump waxa uu ku baaqay ballaarinta dagaalka in ay keeni karayso gabaabsi baa layidhi halis ku ah jiritaanka gantaalaha Patriotka iyo qalabka difaaca hawada ee lagula tacaalayo ciidamada Mareykanka iyo xulafadiisa gobolka in lagu difaaco Israel waxay maaraysay baa layidhi kaydkeedii difaaca laakiin waxaan maqli jiray yaa dabaalaho duurka loo diraa ninkii Trump ahaa waxaa layidhi adeer waa xoog weyn tahay waa xoog furan tahay nin raga baa tahay geesi birlaba ayaa tahay iska celi kadibna waxa laala wixii uu haystay ayuu ooda ka qaaday Israel dhagar iyo dhaka lagama waaye iyana waxeedii ayay tartiibsatay oo dhabiil looguma tago Soomaalida waxay dhihi jirtay tayda dhigis taada dhamid dhabiil gaabiyaa leh hadda taas waxay ku dhacday dowladda Washington warbixintu waxay xustay intii uu socday dagaalkii 39 maalmood ee Iran iyo Israel si taxadir leh Israel waxay u maamushay kaydkeedii gantaalaha difaaca inkastoo saraakiil military ay sheegeen inuusan jirin gabaabsi rasmi ah haddana dagaalka dabada dheeraaday ayaa ku qasbay inay mudnaanta siiyaan ilaalinta kaydka muhiimka ah si maalmaha adag loogu baxsado sababtaasi awgeed Israel ayaa mararka qaar adeegsatay nidaamka David Sling la yiraahdo oo markii dambe loo habeeyay in uu qabto gantaalaha balastiga inkastoo uusan mar walba waxtar u lahayn baa layidhi noocyada qaar ee hubka in uu gacanta ku soo dhigo kumanaan gantaal ayaa la adeegsaday waxaana u muuqataa dowladda Mareykanka hadda in uu waaga u bariyay sida warbixin ay soo saarto uu tilmaamayo Center for Strategic and International Studies macadkaasi ayaa sheegay in Mareykanka intii uu socday dagaalka uu adeegsaday 1060 ilaa 1430 gantaal oo Patriot ah iyadoo kaydkiisa dagaalka uu kor hore ahaa baa layidhi ku dhawaad 2330 oo kaliya marka halkan waxaa ka muuqanaysa dowladda Washington in inta badan wax soo saarkeedii gantaalka Patriot ay cuntaba haddaba qiimaha halka gantaal ee Patriot ayaa lagu qiyaasay ku dhawaad 3.9 milyan oo dollarka Mareykanka waa hal gantaal marka calculator qaado oo ku dhufo waxa tirada 1060 gantaal oo lagu dhuftay 3.9 milyan oo dollar emise ayaa halkaasi Mareykanka dagaalka ku baabiiyay haddii aad xisaabta ku wanaagsanayd halkan waxa kaaga soo baxaya qiimaha dagaalka Mareykanka oo halkaasi oo gantaal bas uu ku waayay ma aha diyaaradihii la kaciyay askartii dhimatay gantaalihii kale ee la adeegsaday kuwii difaaca ahaa maraakiibtii dhaqaaqaysay istiraatiijiyadii la dejinayay dayax gacmeedyadii qarashkaasi ma aha kaliya waa hal gantaal oo difaac ahaa oo ka hortagayay gantaalo dowladda Iran ay soo riday marka halkan igu soo bood ma aha dagaalka casriga hadda lagu jiro dagaalkii qoriga akeega ahaa iyo oo boobaha Ruushyaanka ahaa iyo kii dabajaaxa ahaa ee Soomaalida dabajaaxa ay u taqaanay iyo qorigii kaleente ee dhishikaay lidka diyaaradaha isu waa laga tagay hadda marka waxaad moodaa dad kooban oo Soomaalida uu ka mid yahay gacantooda inuu ku haray marka waxaa la leeyahay Mareykanka hadda qatar weyn ayuu wajahayaa gantaalo cusub inuu soo saarana waxay qaadan karaysaa ilaa 2029 waxaa sidoo kale la sheegay in Mareykanka uu hadda awood u leeyahay inuu soo saaro qiyaasta 600 oo gantaal oo kaliya ilaa waqtigaasi sanadkii inkasta oo uu qorsheynayo in uu kor u qaado baa layidhi wax soo saarka ilaa 2000 oo gantaal inuu gaarsiiyo sanadkii marka dhibaatooyin weyn ayaa hadda haysta baahi caalami ah ayaa sii kordhaysa oo dowlado fara badan oo xaliif iyo bahwadaag la dowladda Washington ayaa sidoo kale u baahan in ay gantaalahan helaan oo Mareykanku uu ku qasban yahay in uu ka iibiyo
adigoo dhaqaaq waay ma lagu soo hooyadii la sheegi jirtay. waxaa leeyahay warbixintu waxay tilmaantay in Mareykanka uusan ahayn dalka kaliya ee u baahan gantaaladan. xulafadiisa oo ay ku jiraan Sacuudi Arabiya ayaa sidoo kale dalbanaya tiro badan oo Patriot ah. bishii Janaayo wasaaradda amuraha dibadda ee Mareykanka ayaa ansixisay heshiis cusub oo qiimihiisu yahay 9 bilyan oo dollarka Mareykanka oo Sacuudiga looga iibinayo 730 gantaal oo Patriot ah. dhinaca kale gantaalka Patriot ayaa door muhiim ah ka ciyaaray difaaca dagaalka Ukraine ee weerarkii Ruushka uu ku soo qaaday, iyadoo Kiev ay hadda qorsheynayso in gudaha dalka ay ka soo saarto gantaalo difaac iyadoo adeegsanaysa shirkado gooni ah. mustaqbalka difaaca hawada su'aalo ayaa ka taagan marka wixii laga bartay dagaalka Iran la fiiriyo. shirkadda Lockheed Martin ayaa dhawaan shaacisay in ay horumarinayso nooc cusub oo gantaal oo la yiraahdo PAC-3 kaas oo la filayo in uu ka jaban yahay baa noocyadii hore. si kastaba haatee wararku waxay sheegayaan in wax soo saarka uusan bilaaban doonin 2028 haddii qorshaha uu hirgalo sida loo saadaaliyay. warbixintu waxa ay sheegaysaa hadda tala in ay ku cadaanayso dowladda Washington oo loo baahan yahay isbedelo waaweyn in gobolkaasi ay ka muuqanayaan marka la fiiriyo sida ay wax u socdaan. Alleylehe ninkii Trump ahaa guntiga ayaa laga haystaa oo waxa ku dhacaya isaga unba dareemi karaya. dhinaca Sacuudi Arabiya boqorkii dhalinyarada ahaa Mohammed bin Salman waxaa maqli jiray shimbir duulduul badan madax gooday ka shilmaysa. ninkii Mohammed bin Salman ahaa waa kii xuutiga isku taagtaagay ee diyaaradii Iiraaniyiintu ay lahaayeen ee Sanca ka dagaysa duqeeyay. laakiin hadda isaga ayaa waxa laga yeersiinayaa qayladiisa inay cid walba maqasho. saaka kooxda xuutiyiinta ahayd waxa ay weerareen garoonka Sacuudiga ee magaalada Najran ku yaala, halkaasi oo lagu tilmaamay in uu yahay mid ka mid ah garoomada isha wax soo saarka dhaqaalaha wadankaasi oo ah. kooxda xuutiga ee wadanka Yemen ayaa salaasadii ku dhawaaqday in ay weerar diyaarad aan duuliye lahayn ku qaadeen bartilmaameedyo ay ku tilmaameen xasaasi oo ku yaala garoonka diyaaradaha ee Najran ee koonfurta boqortooyada Sacuudi Arabiya. afayeenka militariga ee kooxda Yahya Sariic ayaa qoraal uu ku baahiyay bartiisa X ku sheegay in ciidamadooda ay si guul leh u beegsadeen bartilmaameedka, isagoo ku andacooday in weerarka uusan si sax ah ugu dhacay baa layidhi, hase yeeshee uusan shaacin nooca bartilmaameedka la weeraray ama khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. Sariic waxa uu sheegay in weerarkan uu jawaab u yahay waxa uu ku eedeeyay Sacuudiga diyaarado drone oo ku xadgudbay hawada gobolka Sacda iyo Xaja ee waqooyiga galbeed ee wadankaasi Yemen. ilaa iyo hadda dowladda Sacuudiga kama aysan soo saarin wax jawaaba oo rasmi ah oo la xiriira weerarada lagu soo qaaday iyo waliba waxa ay ka dhigan tahay marka la fiiriyo duqeymaha aadka u culus oo ay la kulmeen. shirkadda Saudi Aramco ayaa maalmihii ugu dambeysay la kulmaysa weeraro ay kooxda xuutigu aad ugu garaacayeen bartilmaameedyo muhiim ah oo ku yaalay gudaha wadankaasi Sacuudiga. hase haatee hadda kooxda war ayay soo saareen waa shirkadaasi Sacuudiga ah, waxaana ay leedahay afayeen ama hogaamiye u hadlay shirkadda shidaalka ee Saudi Aramco ayaa sheegtay baa layidhi in weerarka kooxda xuutiyiinta ay ku qaadeen xarumaheedii bishii hore aysan wax saameyn ah ku yeelan awoodda wax soo saarka shidaalka ee boqortooyada. madaxa Saudi Aramco Amin Al Nasir ayaa sheegay in kasta oo la weeraray buu yidhi qaar ka mid ah xarumaha shidaalka intii lagu guda jiray bishii Luulyo, haddana ma jirin wax dhaawaca oo saameeya awoodda shirkadda iyo soo saarista shidaalkaba. wadahadallada Iran waa fursadihii ugu dambeeyay. Trump oo markii ay Sacuudiga inta soo saareen hadlay waxa uu leeyahay Iran ay waxaad taagan tihiin muftarad duruq wax la yiraahdo isgoys ayaa taagan tihiin oo ah halkii ugu dambeysay ee ahayd fursadda ay inagu bixin doono. haddii aad isgoyskaasi laba dhinac mid qaadaan, dhinaca nabadda haddii aad qaadaan nabad baad heli doontaan, haddii dhinacan aad wax yar u janjartaanna
waxay idigu dhaca adinka heli doona marka aniga yaale eedin adinka hal is eedo ayuu leeyahay ninkii Trump waxa la yiri marka xaalku uu sidaan u adag yahay ninka raggaana waa aamusa fulagana waa barar badiya balan eegno warkan Trump waxa ku qoran madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in wada xaajoodyada hadda ay la leeyihiin Iran ay socdaan inkastoo Tehran ay beenisay jiritaanka wada hadallo toos ah Trump ayaa tilmaamay wada xaajoodka fursadii ugu dambeysay isaga oo ka digay Iran haddii aysan aqbalin heshiis lagu soo afjarayo colaadda Mareykanku waxa uu bartilmaameysan doonaa hoggaanka dalkaasi ugu sareeya waxa uu leeyahay haddii Iran ay nabad diido محمد باقر غالباف مسعود بسشكيان عباس عراقشي مجتبى خماني يا محسن رضا رجع معنا حالة وطن كاسي إيران كمية قانان برتلمامات شرعية أي أمريكان كون لغن دونان نيكي ترامها دو داسا يوساكا ليمي واي وعوسيدو كلا شيغي إن شركتها واوين شدالكا أي فائدة بدن كهليان sare u kaca qiimaha saliidda taas oo uu ku sababeeyay hoos u dhaca sahayda shidaalka ee ka dhashay dagaalka Iran gantaal ayaa sidoo kale ku dhacay baa la leeyahay markab marinbiyoodka Hormuz isticmaalayay Iran si kasta oo loogu hanjabo waxay u muuqataa in hadda waxan aysan wax weynba ku ahayn hay'addu waxay sheegtay in dhacdadii ka dhacday meel qiyaastii 20 mayl badeed waqooyi bari kaga beegan magaalada Qasab caasimada dalka Cumaan aan ilaahdee in lagu beegsado markab isla markaana aan la soo sheegay wax weyn oo qasaare ah oo halkaasi ka dhashay waayahay Trump waa hanjabaadiisa talow maxaa xigi doona sheekooyinka Trump iyo Iran aan halkaasi ku abiyo aan inoo furo beej kale oo aan waayadan baltilaab aan u qaadin ninkii Netanyahu ahaa ninkan ani waa fahmi lahaa ninkan waa aamusan yahay waxba uu isku qataaraya ma hurdo ma jiifto inta buu telefoon midoo handado midoo waabiyo midoo yiraahdo masaakiin aan ahay wad ii jeeda saaka warbuba la yimid ba la yaabaha wuxuu Trump hoosta ka galo saaka waxa uu soo istaagay shacabka magaalada Qasa ku daruufaysan ee Falastiiniyiinta waa iska baxayaan oo iyaga baa rabaan nagal albaabada u furayna ee caalamka dawladaha jooga haday tol iyo qaraabo yihiin dadkan yaanay dhiman xaq qaabilaan kadibna waxa uu rabaa magaaladan xeebta leh ee iska dehan taariikhda iyo waayaa soo jireenka lagu yaqaanay magaalada halganka iyo taariikhda haddii aan si kale u dhigo inuu iska fariisto oo halkaas yiraahdo waan ka raay dadkii halkan joogay balaneego saaka warbaahinta qaar waxa ay qorayaan waxa la leeyahay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa ugu baaqay beesha caalamka in ay albaabada u furto dadka ku nool marinka Gaza ee doonaya inay ka baxaan halkaasi iyagoo sheegay in Israel ay awoodo qorshayaal lagu fududeynayo safarkooda Netanyahu ayaa sheegay in dalalka doonaya in ay gacan ka geystaan arrintaasi si ay u qaabilaan dadka Falastiiniyiinta ee doonaya in ay ka baxaan marinkaasi ay soo dhaweynayaan intaas ku daray in dadka Gaza ay xaq u leeyihiin inay doortaan halka mustaqbalkooda ay ku dhisanayaan isla markaana Israel ay ka shaqeynayso diyaarinta habraacyo u sahli doona dadka doonaya in ay safraan hadalka Netanyahu ayaa dhalinaya falcelin kala duwan iyadoo dood xoogan ay wali ka taagan tahay mustaqbalka marinkaasi kadib dagaalka dhinacyada Falastiiniyiinta ah iyo qaar ka mid ah dalalka caalamka ayaa adeegsanaya qorshe kasta oo la xiriira ka bixitaanka dadkaasi inuu noqonayo mid ikhtiyaari ah oo aanay jirin cid qasbi karaysa marka la fiiriyo sida xaalkoodu oo ku soo gabagaboobayo dhinaca kale magaalada Rome ee wadanka Talyaaniga waxa la filayaa wada hadalladii aadka u sareeyay ee dawladda Lebanon Joseph Aoun oo hogaamiyo wadaadka masiixiga ah iyo waliba generaalka caanka ah ee ciidamadaasi muddada dheer hogaaminayay iyo dawladda nidaamka Israel ayaa hadda iswajahaya iyadoo Naim Qasim oo ururka xisbiga hogaamiye ee Lebanon uu ku dhawaaqay in aysan jirin wax kaga 15
heshiis kasta oo halkaasi la soo gaaro halganka iyo waliba dhamacda rasaastu ay halkeeda ka socon doonto waa sida ay kooxda Iiraan gacansaarka la leh ay dooda u dhigayaan wariyaha Al Jazeera ee arrimaha Israel ninka la yiraahdo Najwan Simri ayaa shaaca ka qaaday falanqeyn lagu sameeyo gudaha Israel oo muujinaya in ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu qorsheynayo in marxaladan ay fuliso ka bixitaanka dheeraadka oo ciidamadooda uga baxaan koonfurta Lebanon warbixintu waxay sheegtay waxa uu yeeray deegaanada tijaabada ah oo laga hirgelinayo magaalooyinka Sarifa Faruun iyo sidoo kale halka loo yaqaan Sutra al-Garbiya oo loo arko wajiga koowaad isla markaana ugu dambeeya qorshaha hadda jira iyadoo aan la filayn in laga sii ballaariyo baa la yiri dhinaca degmada bin Jubayl aaga loo yaqaano qadka jaalaha ah sida uu sheegay Najwan Simri ra'iisul wasaare Netanyahu iyo waliba wasiirkiisa dagaalka ee mayalka fog Israel Katz ayaa waxa ay ku xireen ka bixitaan kasta oo dheeraada marka hore in hubka laga dhigo ururka xisbiga dhinaca kale xog uu daabacay wargeyska The Hearts ayaa tilmaamay istiraatiijiyadda Israel ee wada hadalladan ka soconaya magaalada Rome inay hadda diiradda saarin in la gaaro heshiis kama dambaysa halka ujeedadu ay tahay in la soo gabagabeeyo colaadan oo xal loo helo falanqayaasha Israa'iiliyiintu waxay rumaysan yihiin in si socoshada wada xaajoodyada ay Tel Aviv u aragto fursad ay ku cadaadin karayso xisbiga isla markaana ay uga hortagi karayso xiisadda ka taagan wadanka Lebanon waayahay khiyaarta ay nala socotay waxaan filayaa falanqayntii ugu dambeysay oo gobolka bariga dhexe iyo meesha hadda ay wax marayaan haddiiba aad halkan soo gaartay inaanay waxba ku seeganayn laakiin su'aasha barnaamijkeena galabnimadan waxa uu noqonayaa ninkii Trump ahaa waa kan hadda taagan nimankan la yiraahdo Iiraan haddii ay diidaan nabad madaxdoodan beegsan doonaa kaydkiisa gantaalaana waa baabeen haddaba suuragal ma tahay adigoo ka tusaale qaadanaya weeraradii June ee sanadkii hore iyo weeraradii February ee sanadkan la qaadaba intaba waxaa lagu dilay hal doorkii iyo aqoonyahankii wadanka Iiraan aan ka bilowno Iiraan saynisaanadii nuclearka inta badan waa la kharajiyay saraakiishii ciidamadana waa la dilay oo caanka ahaa wadankaas waliba Iiraan ay u arkaysay rankii garbaha casaayo dhan waa dhaqaaqeen markii dagaalkii February uu bilowdana Trump madaxdii ugu sareysa dalka ayuu qoorta ka jiray wasiirkii aan iraahde sirdoonka saraakiil macno lahayd Cali Laarajani oo madaxii iyo malafka amniga qaranka wadankaas ayaa ay filosofarkii dawladnimada iyo haykalka Iiraan ay ku dhisnayd iyo hogaamiye wadankaas ugu sareeyay Cali Khamenei intaba waa huleeleen oo adduunka ay macsalaameeyeen kadib markii ay la kulmeen gantaalaha dawladda Mareykanka iyo nidaamka Israel hadda Trump waxa uu leeyahay fursadii ugu dambeeyay qaata haddii aad diidaan Maxamed Baaqir Qalibaf Abbas Araqchi ninkii ahaa Mujtaba Khamenei Mas'uud Basashkiyan Muhsin Rida ragga macnaha lana kuma yaqaanaan oo meesha ka bixi doonaan tani ma dhabbay noqon doonto oo Iiraan maxalliga isdhiibaysay ayaa la gaaray magacaada iyo meesha aad joogto ku bilow kadibna qaybta hoose ee faallada aragtidaada inoogu qor